بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. magacaygu waa cabaas cabdiraxmaan sheegow, agaasimaha guud ee isbitaalka daynile. halkaana waa isbitaalka guud ee daynile. waxaan rajeynayaa inaan wax yar oo kooban warbixin kooban inaan ka siiyo isbitaalka daynile, marxaladihii uu soo maray iyo xilligii la asaasay iyo shaqada uu qabto. isbitaalka waxaa la asaasay amba la howlgeliyey 2003 xilligaas oo baahi badan oo caafimaad ay haysatay deegaanka ama bulshada ku nool degmada daynile. xilligaas oo aysan jirin dowlad dhexe oo la wareegta caafimaadka amba guud ee bulshada. waxaa leh dad mas-uuliyiin hayay oo degmada jooga waxay ka howlgaleen inay helaan bulshadan degmada joogta iyo nawaaxigeeda inay helaan caafimaad, adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah. alxamdulilah waa ku guuleysteen inay la sameeyo xaruntan caafimaadka oo dadkii badnaay oo deegaanka oo dhibaatada haystay ay maanta alxamdulilah ay ka faa'iideen. marxalado badan uu soo maray oo adag oo kusoo shaqeeyey, laakiin hadda alxamdulilah waa laga soo gudbo wixii ay adkaay. waxaan rajeynayaa markaa wixii ka dambeeya inaan gaarsiin doono intii dowlad la wareegta caafimaadka guud ee Soomaaliya intay ka imaanaysa inaan sii wadno gacanteena ku hayno hadii ilaahay yiraahdo. isbitaalkan waa isbitaal public ah oo ummadaas Soomaaliyeed u dhexeeyo, bixiyana adeeg free ah oo free of charge ah oo lacag la-aan ah oo aan wax shuruudo ku xireyn. ma ahan isbitaal oo shaqsi leeyahay, waa isbitaal dan guud oo lagu adeego ummadaas. wuxuuna isbitaal u yahay labada shabeelle, deegaanka dadka degan iyo dadka degmada daynile degan. isbitaalka wuxuu qaabilaa markaad fiiriso registrationkeeda ama daatadeeda fiiriso dadka kala yimid degmooyinka kale ayaa u badan. saad ogtiinba isbitaalku waa referral ama district hospital. mar hadduu referral yahay waa fahmi kartaa isbitaalka waxaa u badan oo imaanaya barakacayaasha oo aad ugu soo bata degmada daynile oo gaaraya ilaa nus milyuun. isbitaal kale ma lahan, mana awoodi karaan inay tagaan isbitaalada lacagta ah oo brevetka ama gaarka loo leeyahay inay tagaan, ma awoodi karaan. sidaas daraaddeed marka maalintii isbitaalku wuxuu qaabilaa ugu yaraan 180-160, taas oo ah ka badan inta uu awoodi karo isbitaalku inuu qaabilo. waxaa dhacda dawo loogu talagalay 3 bilood in inta la keeno isbitaalka ay ku dhammaato 1 asbuuc. sababtaasna waxay tahay inay ku badan yihiin in dadka ku badan yihiin barakacayaasha iyo dadkii deegaanka oo ku badan